Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada falanqaynta ciyaaraha iyo kala iibsiga ciyaartoyda kooxaha ee ku guuleystay kala wareegida kooxaha kale ee ciyaartoyda ay doonayaan. Ugu horreyn, Bayern Munich ayaa ku guuleysatay ama ku dhawaaqday ciyaartoyga ee Crystal Palace ee weeraryahanka lagu magacaabo Michael Olise. Michael Olise oo u ciyaari jiray last season-kii hore ee lasoo dhaafay ee Crystal Palace oo 10 gool iyo 6 caawinaad iyo 19 mar ka soo muuqday ee Crystal Palace ayaa wuxuu ugu wareegay lacag ahaan 40 milyan ilaa 35 milyan oo euro ay ugu wareegay Bayern Munich, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqo ay sugi doonto xilli ciyaareedka soo socda ee 2024 ilaa 2025 waxaana laga saxiixday 5 sano in u ciyaari doono. Michael Olise weeraryahan inaba aan caadi ahayn weeyaan. Bayern Munich aad iyo aad ayay ugu guuleysatay. Ninkan Michael Olise waxaa rabtay kooxaha kale ee Premier League. Dhanka kale, Manchester United oo heshay ciyaartoy ay sugaysay in ay ku soo darto safkeeda weerarka. Manchester United ayaa ugu dhow inay la soo wareegato, waxayna si shakhsi ah la saxiixatay weeraryahanka Bologna ee Serie A ka dheela ayaa si shakhsi ahna saxiix ula gaartay. Marka weeraryahankan waa uu soo socdaa. Waxaa meesha ka baxay xagaagii dhammaaday Anthony Martial oo ahaa dhaawacley, iyo hadda waxaa la sheegayaa in Rasmus Hojlund uu godkiisa ugu soo galay. Manchester United oo guusheeda u cadcad in ninkan Old Trafford uu imaani doono saacadaha ama beryahan labada beri ee soo socoto. Labada maalin ee soo socotaan lagu dhawaaqi doonaa saxiixan cusub ee Manchester United ee la soo saxiixanayso weeraryahanka ee Bologna. Weeraryahankan Zexi la dhahayo inaba caadi ma ahan. Weeraryahankaas wuxuu wareystay dafaacyo badan Italy. Marka Zexi waxaa lagu dhawaaqi doonaa labada maalin soo socoto inuu Manchester United si cad ah ugu biiri doono. Dhanka kale, Greenwood waxaa lagu arkay garoonka tababarka ayaana lagu arkay. Greenwood waa nin oo 22 jir ah oo Manchester United loan dheer ugu fasaxday dhanka Spanish u ciyaaray Getafe. Runtii wuxuu dhaliyay Getafe u dhaliyay intuu u maqnaaye loonka ugu maqnaaye season-kii hadda oo dhacay oo lasoo mooday 10 gool ayuu ciyaaray. Ninkan Greenwood waxaa lagu eedeeyay fal isjijiid dhanka kufsiga lagu eedeeyay. Marka Manchester United way aqbali weysay inay ku soo celiso, oo xitaa taageerayaasha Manchester United dhanka gabdhaha ayaa cadaadis saaray ninka in la diro ama in la fasaxo, balse hadda waxay u eg tahay xagaaga season-kan inuu u ciyaari doono ilaa laga iibsanayo. Kooxaha doonaya waa kooxo badan dhanka Italy iyo dhanka Spain iyo dhanka kale. Napoli iyo Juventus iyo Lazio iyo Marseille iyo Valencia ayaa ninkan raba. Marka
waxaana lagu qiyaasaa ilaa iyo 40 ilaa iyo 50 milyan. Marka maalmahan wuxuu kusoo laabtay garoonka tababarka oo isagoo la joogo ninkan kale lagu magacaabo Shotaya iyo aabihiis. Marka Greenwood ninkan nin caadi ahayn waaye oo daa'ir khatar ah. Manchester United wuu ciyaaray, xitaa wuxuu ka garab ciyaaray Cristiano Ronaldo. Marka ninkan waxaa la filayaa in la iibiyo, balse weli dib u dhac ayaa dhacaya. Garoonka tababarkan uu kusoo noqday asoo tababaranayna waa la arkay. Marka wuxuu uu friendly club ula ciyaari doonaa haddii uu sidan u sii joogo Manchester United ilaa xagaagi dambe, waxaana contractigiis ka hartay sanado ayaa ka hartay. Dhanka kale Thiago Alcantara oo ku dhawaaqay in uu ka fadhiistay dhammaan ciyaaraha tartamada. Waa ninkan 33 jirka ah oo ka fadhiistay oo u ciyaaray Barcelona iyo Bayern Munich iyo Liverpool. Marka uu ka fadhiistay. Dhanka kale Manchester United oo xayiraad ah laga saaray inay la soo wareegato daafac, maadaama ninka kale ee Zexi uu imaanayo si shakhsi ah ee kala gaartay. Haddana waxay raadinaysaa daafac iyo nin ka ciyaara khadka dhexe. Ninkan lagu magacaabo Todibo ayaa UEFA kusoo rogtay in Manchester United aysan iibsan karin sabab la xiriirta ah ninkan inuu ka ciyaaro Faransiiska kooxda lagu magacaabo Lille inuu u ciyaaro, maadaama kooxdaas iyo ninka hadda qaybta ka gatay Manchester United isku sheer ay yihiin. Dhanka kale Joao Cancelo ka wacdaradeeyay Euro 2024 ayaa Pep Guardiola uu doonayo inuu iska fasaxo Juventus iyo kooxaha kale inuu la wareego. Dhanka kale Kim Min-jae oo difaaca shubka ahay birka ahay oo Napoli xitaa taariikhda history wax kaga qoray oo hadda keedka ah Bayern Munich oona la doonaya in lagu celiyo Serie A ha noqoto Napoli ama kooxaha kale ayaa hadda xitaa Manchester United ayaa ninka u hanqaltaagi jirtay oo xitaa ay rabtay ee ka daba oynaysay, balse ninkan wuxuu bench uga jiraa dhanka Bayern Munich ee lagu magacaabo ninka daafaca ah Eric Dier. Marka ninkan waxaa lagu celinayaa Serie A, meeshaas ayaa ku nuuraysa lahay, dhankaas ayaana lagu celinaya. Dhanka kale UEFA oo soo bandhigtay banooniga lagu ciyaari doono semifinalka Euro 2024 ilaa iyo finalka lagu ciyaari doono Euro ayaa soo bandhigtay banoonigan quruxda badan in lagu ciyaari doono labada kulan soo hartay semifinalka iyo finalka. Dhanka kale computerka oo falanqeeyay ama qiyaasay kooxda garaaci doonta kooxaha kale ee iska soo horjeedaan Euro 2024 Spanish oo ku toostay semifinalka in la ciyaari doonto France. Marka Spanish waxaa leeyahay waxay qaraaci doontaa Faransiiska 32% ay qaraaci kartaa. Dhanka kale Faransiiska asagana waxaa leeyahay Spanish wuxuu garaaci karaa 27.31% ayuu garaaci karaa Spanish. Marka habeenada kala soo socda ayaana la arki doonaa semifinalka Spanish iyo Faransiiska. Marka Faransiiska waxaa leeyahay waa la garaaci doonaa. Dhanka kale England ayaa la sheegay in ay garaaci karto 26.59% in ay garaaci doonto Netherlands. Holland inay garaaci doonto ayaa loo badinaya. Dhanka kalena Holland waxaa la sheegay iyadana
13.93% in ay garaaci karto England. tan kale computerka wuxuu soo saaray kee ku guuleysan doona Euro 2024 marka wuxuu u qiyaasay isagana in Francis uu qaadi doono. dhanka kale Bukayo Saka oo la awaarmarsiiyey xalay markuu u ciyaaray ninka kooxda ka shuqleeyay oo xitaa gool u dhalay bareejada xitaa keenay. xitaa Jadon Sancho ayaa ugu mahad celiyay una ku farxay in uu cunsurinimadii oo macnaheedu lagu eedeynay 2020 ahay ayada iyo Italy, England iyo Italy markay wada ciyaarayeen finalka uu gafay Bukayo Saka penalty rigooradii oo xitaa kalar ahaan lagu cunsuriyay isaga Rashford iyo Jadon Sancho. marka Sancho aad ayuu ugu farxay. ninkan Harry Kane ayaa waxaa la sheegayaa in uu yahay kabtanka kooxda England, uu ka yahay sida Cristiano Ronaldo camal in uu ka yahay, laakiin ninkan way ka jiiftaa marka waa iska caajisan yahay. dhanka kale Southgate oo jawaab cad siiyay kooxaha ama kuwa kala falanqeeyaasha ku maadsaday in ay kooxdiisa meel dheer saaxiibayaal nagu tuura cimaamada subscribe like iyo share Ronaldo oo noqday ninka ugu badan oo la siiya abaalmarinta Euro-ga oo noqday Ronaldo